Jinku waa makhluuq ka mid ah makhluuqyada Ilaahay abuuray, waana addoommo lagu kalifay inay adeecaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisa. Sida bani'aadamka waxay leeyihiin muslimiin, gaalo iyo kuwo faasiqiin ah. Kooda wanaagsan wuxuu galayaa jannada, kooda xunna wuxuu galayaa cadaabta. Ilaahay wuxuu yidhi: wamaa khalaqtu ljinna wal-insa ilaa liyacbuduun. Uma abuurin jinka iyo insiga inay caabudaan mooye. Sidoo kale Ilaahay wuxuu ka warramay jinka oo leh: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. waxaa naga mid ah qaar wanaagsan iyo qaar ka hooseeya, waxaan nahay kooxo kala duwan. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. waxaa naga mid ah qaar muslimiin iyo kuwa xadgudbaya. Kuwa islaamay waa kuwa ku dadaalay hanuun, kuwa xadgudbana waxay ahaadeen jahannamo xaabadeeda. Waxay culammada dhammaantood isku waafaqeen inay yihiin mukalafiin la xisaabinayo maalinta qiyaamaha. Qaarkood waxay ku tageen in jinka iyo insigaba yihiin isku axkaam, halka qaar kalena ay ku tageen inay kala duwan yihiin xagga axkaamta oo ay ku xiran tahay awooddooda iyo tamartooda. Sheekhu Islaami Ibnu Taymiya wuxuu yidhi: waxaa la amray inay u raacaan usuusha iyo furuucdaba awooddooda, maxaa yeelay insaanka lama mid aha sida xaqiiqadu tahay. Lama mid aha wixii la amray ama laga reebay insiga, balse waa isku nooc xagga amarka iyo reebidda, xalaasha iyo xaaraanta. Taasna ma ogi inay muslimiintu isku khilaafeen halkay ku nool yihiin. Marka la eego meesha ay ku nool yihiin, waxay la mid yihiin makhluuqyada kale oo nolol u gaar ah ayay leeyihiin, way isguursadaan wayna tarmaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo ka warramay Ibliis: afatattakhiduunahu wa dhurriyyatahu awliyaa'a min duunii wahum lakum caduw. Ma waxaad ka yeelanaysaan isaga Ibliis iyo durriyadiisa awliyo aniga ka sokow, isagoo idin ah cadow? Aayaddaasi waxay caddaysay in Ibliis leeyahay durriyad ama ubad, taasoo macnaheedu tahay in jinku tarmo oo ubad dhalo sida xayawaanaadka. Guryaha jinku waxay u badan yihiin meelaha laga guuray. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi: ina hadihi alxushuusha muxtadaratun, faidaa ataa axadukum alkhalaa'a falyaqul acuudu billahi min alkhubuthi waalkhabaa'is. Suryadan waa la degan yahay, marka midkiin aado xagga musqusha ha dhaho: ilaahay waxaan kaga magan galay shaydaanka labkiisa iyo dheddigiisaba. Sidoo kale jinku wuu dhintaa sida makhluuqyada kale, balse waxaa muhiim ah in la ogaado in caalamku jinku iskaga daahsoon yahay oo qayb ka mid ah yahay, mana garan karno xaaladahooda wixii shareecadu inoo caddayso mooyaane.